daawadayaal khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira telefishinka bulsho cali maxamed warcadde oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee reer Somaliland. baraha bulshada ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa la soo dhigay warar kala duwan oo sheegaya in qaar ka mid ah libaaxyada oo ku dhaqdo magaalada Hargeysa mid ka mid ah uu baxsaday. cali warcadde ayaa khadka telefoonka aan ku helnay balse aan arinta u weydiino inuu jiro warka sheegaya in libaaxyadaasi baxsadeen isla markaasina shacabka looga digayo inay dhibaato gaarsiiyaan magaalada Hargeysa ku dhaqan. علي كسو دو برشة تي في أرنتاسي maxaa ka jira بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamay dadweynaha reer Soomaaliland qaar reer Hargeysa runtii waxa weeyaan waxyeeladu gacan amni ku jiraan waa la ilaaliyaa bari hore waxaan way jirnaa intii ka dambeysay waa aad loo ilaaliyaa marka arintaas waa arin runtii reer fakatay ma gaadaba la yiri waxyeeladu way dayihiin dhammaan waxay ku jiraan halkii ay ku jiraan marka waxa arintaas ma jirtaa mise ma jirto arintaas waxba kama jiraan maxaa la oran karayaa way keentay in arintaasi waayo wariyaal kala duwan dad baraha bulshada isticmaala ayaa warkaasi soo dhigay maxaa aad soo oran kartaa way dareemeen oo warkaas waa loo abuuri karaya runtii baaluhu waa weynaadeenoo dameeraha ilaaleeyeen ama way ka weynayeen marka waxaa laga yaabaa qof fulayoo dameer meel ka khufleyntu arkay inuu dabeedna cararo ilaato la waa libaax marka waxa maanta nin fulayabaa meesha u xafidiyey laakiin waxba kama jiraan arrintaas bahalaas waxay ku jiraan halkoodii wax dhibaato oo ka jira inta waa ay yihiin halkii lagu talagalaanay ku jiraan aad maasanta cali maxamed warcadde daawadayaal kaas waxa waa cali maxamed warcadde oo telefishinka bulsho goordhaweeytoola khadka telefoonka ku wareystay iyadoo aanu ka wareysanay wararka sheegaya in qaar ka mid ah libaaxyadiisu ay baxsadeen oo magaalada Hargeysa ay galeen isla markaasina shacabka ay khatar gelinayaan